22 sano kadib maanta oo kale ayaa dhidibada loo taagay aas-aaska ciidanka qaranka Somaliland. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka qayb galay munaasabad si heersara loo soo agaasimay isla markaasina lagu xusaayay aas-aaska ciidanka qaranka. munaasabadani oo ka qabsoontay xarunta taliska guud ee Hargeysa, madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu ammaan badan dusha u saaray ciidanka qaranka, wuxuuna ku ammaanay sida quruxda badan ay u gutaan shaqadooda. madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa kale oo uu sheegay inaan loo dul qaadanaynin cid kasta oo isku dayda in ay wadankan dalkan iyo dadkanba khalkhal geliso. madaxweyne Silaanyo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi ciidanka reerka Soomaaliya dadka haddii aan la kala celin oo la ilaalin oo sharciga la ilaalin oo cidda la soo sameyn wax badan baa la isku qaabsanaya, wax badan baa laga fakaraya. dad dimuqraadi baynu nahay, dad wadajir baynu nahay, siyaasadda waa la iska horumarinaya. waxaa la kala leeyahay qaabka dowlad waxyaarka, laakiin farsamo iyo cilmi iyo aqoon iyo nidaam baa loo kala baxaa. wixii nidaamkaa ka baxsan ee nabadgelyada wax yeelaya cid laga yeelaya ma jirto. boliiskana wuxuu samaysan yahay inuu nabadgelyada ilaaliyo cid kastaba ha noqotee. marka waxaan leeyahay dadka qaarkood siyaasadda waa la isku qabsanaya, waa la isku qorinayaa, laakiin cidna ka yeeli mayno, cidna laga aqbali maayo intaynu ciidankeena boliiska ciidamada kale nabadgelyo ilaaliyaan haysano in cidina ay waxyeesho oo ummadda iyo dadka nabadgelyada xasiliyada haysta ay ku cayaarto nabadgelyada iyo xasiliyada aynu leedahay. waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ciidamada boliiska, madaxdiisa, mas-uuliyiintiisa iyo mijihiisaba sida fiican ee qarnimada leh ee hawsha xilkaa loo idmiray ay ilaaliyaan. waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaaran baan u soo jeedinayaa. Khadar Kaafi, Space Channel, Hargeysa.